cabitaankii dhiiga sifeynayay maasha allah ilaahu nimcada nusqaanteedana hareer mari waan buuxiyey lagama sheekayn karaan ku lagama sheekayn karo dhulkeena nimcaa fadhida isku darso dhowr nooc isku dardaray weeyaan kani maasha allah bismillaahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa sayidina mawlana maxamed halkan waa balam ninkii garanaya wuu garanayaa waa fitamiin sidiisii aad buu u wanaagsan yahay maasha allah lagama sheekayn karo fitamiinada ku jira waa fructi acidada noocyada ka mid ah potassium buu leeyahay vitamin B buu leeyahay A buu leeyahay C buu leeyahay E buu leeyahay calcium badan baa ku jirta maasha allah wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aadka u qiimaha badan ee la cuno fitamiinka ku jira haddaan isnaana ka sheekay kama sheekayn karno xoogay baan uga baahannahay maasha allah cabitaanadii isdaba jooga oo fitamiino leh qaboobaha maadaama uu soo gelayo haddaad wax isku dhex dardartan way kasii fiican tahay inaad shay keligee cunto xataa cuntada waa sidaas midhaha yaryar buu leeyahay waddankeeni horta in laga helo war ma hayo laakiin wadamadan waa u baxaa maasha allah fitamiinada ku jira lagama sheekayn karo maasha allah halkan aan ku ridanaynaa waynu ognahay faa'iidada kaaradka lagama sheekayn karo kaaradka waxa weeyaan dhiiguu kordhiyaa blood pressure-ku hoos u dhigaa fitamiino badan oo A iyo C iyo K baa ku jira maasha allah isagana lagama sheekayn karo maasha allah isagana halkan aan ku ridaynaa maasha allah kani waa beetroot-kii maasha allah beetroot-ka waan horaan uga soo sheekaynay qiimihiisa lama koobi karo ninkii hadlayaa waa iska hadlo indhaha ku doogsada qalbiguna kasii daran of xaleeg alayla indhaha ku doogsada qalbiga markuu galana hee jidhka siduu ugu wanaagsan yahay wax ugu wanaagsani ma jirto maasha allah waa nimco dhulkeena nimcaa fadhida waxa la isku dardaraa way ka caafimaad badan yihiin waxa keligood la cuno haddaad imika cuntada xataa isku dardarto oo aad digir iyo bariis isku darto digir iyo hadhuudh isku darto maasha allah kolle waxaa la yidhaahdaa isku dardarku combination of food aad buu u qiimo badan yahay marka waxbaynu isku dardarsanaynaa maanta maasha allah alayla waa qalbigaa ku doogsada indhuhuna kasii daran lagama sheekayn karaan ku yidhi kan lagama sheekayn karo maasha allah kana waan ku darsanaynaa maasha allah beetroot-kii waan ku wada darnay maasha allah biyihii ku dar lasoo shiidayaa marka maasha allah kani waa xabxab waxaa halkaa taalla sinjibiil waxaa yaalla halkan cananis saddexda shay qiimahooda lama koobi karo adiga imika waa kula yaryihiin macno badan kulama laha laakiin faa'iidada ku jirta iyo dawada ku jirta haddaan israala maanta oo dhan ka sheekeeya xabxabka waxaynu ognahay inuu yahay wadna xanuunka wax ka taro xataa jir xanuunka marka dad kale hadiyo jeer cadalaadka muruqyadu xanuunaan wax badan buu u taraa jidhka waxbuu u taraa wadnaha circulationka dhiigga waa natural labadan haddaad isku dartana waaba natural dawaahoo qaali ah dee anagu wax walba afka ma soo marin karne adduunyada dawooyinka ugu qaalisan baa laga sameeyaa qofkii garanaya macnaha iyo ujeedada ninkii maaxiyaa garan caqli dee qofkii ilahaysiya wuu iska garan karaa labadaa marka la isku daro weliba wow yacni waxaan ku yidhi dadka la tegaya la arki maayo maasha allah runtii jinjarta iyada waynu ognahay iyada laftirkeedu waa antioxidant waxa la yidhaahdo ee qashinka saara dhiigkarkay wax ka tartaa xanuunada loo yaqaano dadka had iyo jeer xanuunada leh lafa xanuunka jir xanuunka waxaasoo dhan bay wax u tartaa wadna xanuunkay wax ka tartaa sambabaday wax u tartaa fitamiinadeedu aad bay u badan yihiin maasha allah magac miskiin lagama aha
hadda waan shiidanaynaa hadda xabxabkii waan jarjaraynaa waan iga idhi xabxabkani horta iyada jinjartan haddii la isku darsado ma aragti family cidba isfuri maysaan u malaynayaa maasha allah labadanaan horta waan jarjaraynaa kole anigu xabxabka siyaabo gooniyaan u gooyaa qofba sibuu u gooyaa marka anigu hadiyo jeer markaan sidaas ayaan hareerta uga quraa marka dambana qorigan waan soo maydhay maasha allah iyadana jarjaraynaa jinjar qunyar socdaa la noqdaa wax badan wax walba lagama cuno maalin walba laakiin wax yar hadaad ka cunto jinjar qiimaheeda lama koobi karo waa shayada aad iyo aad u qaaliga ah ee dawooyinka ah maasha allah cafwan markii aan jarjarayay idin maan tusin laakiin kan waa pineapple-kii isaga laftirkiisu waa xanuun biye paracetamol uma baahnid isaga ay paracetamol masalada iyo xanuunka yaree hoose oo dhan isaga loo cunaa waa dawo caalami ah oo aan hore loo arag oo loo maqal dawooyinka internationalka ay ku jiraa isagu miskiinba maaha meelahaas kama ciyaaro waxa laga sameeyaa paracetamol ana diinka iyo waxaad maqasheen waxa laga sameeyaa pineapple-kan waliba chemical baa lagu daraa in yar hadaad kan yar wax oge ka cunto caafimaad waad sahaysaan maasha allah maasha allah saddexdii shay ee caafimaadka kow ka ahaa waa kuwan iyagoon isku soo jarjaray magac miskiin lagama aha allah yacisik maasha allah hadda waan shiidayaa koobkii waan soo qaadanayaa saddexdan shay waa xanuun biis maasha allah lagama sheekayn karo maasha allah cabitaankeenii waa kan caadi maaha xanuun biyo asala walaina xanuun ilaahay haynaga haye muruq xanuun iyo saddexdaa shay waa cabitaankii ka koobnaa pineapple-ka cananiska iyo xabxabka iyo sinjibiisha caadi maaha maasha allah allah nagana ha noo calfo waa la sooman yahay waa ayaamul khayr waa maalmo iideed maasha allah anagana allah noo calfo intaan haysan allaha siiyo wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum dhammaantiin بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا